بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta aad joogtaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal ku soo dhawaada kulankan gaarka aanu la yeelanayno wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar oo ka soo qayb galay munaasabadii xuska 18 May maalinta gooni-sutaaga Soomaaliland ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka TV-ga Somsad aad maadsantay aad bal wasiir nooga waran ugu horeyn hambaliyadaada iyo dareenkaaga maanta munaasabadani waxay kaga duwan tahay iyo ka soo qaybgalkaaga waxa maanta halkan Burco ka dhacay isu soo bax aad iyo aad u ballaaran oo shacab weynaha ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco ay ku muujiyeen dareenka wadannimo iyo dareenka qarannimo ay ku soo dhaweynayaan 18 May oo maalintii ay Soomaaliland dib ula soo noqotay xorriyaddeedii waa dareen farxadeed waa dareen muujinaya qarannimo jacayl iyo sida ay dadka shacabka magaalada ku nool ay u daneynayaan horumarka nabadgelyada iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland anigana farxad gaar ah ay tahay inaan munaasabadda 22aad qarannimada dalka aan maanta kaga soo qayb galo magaalada Burco fantasiyaha ka dhacay maxay kaga duwan tahay tusaale ahaan iminka waxa weeye magaalada Burco marka showgeeda maanta soo weegtay ka soo qayb gashay waana meeshii lagaga dhawaaqay ee gooni-sutaaga 18 May meeshay ka dhacday maanta marka showgeeda soo weegtay bal munaasabada iyo qabanqaabinteeda iyo muuqaalka bal yar dul istaagno nooga waran waa runta maanta way ka duwaneed maalmihii hore iyo taariikhihii hore ee loo dabaaldegay maalintan 18 May marka ugu horeysa horta Burco waa magaalad dadkeedu ay xamaasad dheeraada iyo qarannimo muujiyeen taariikh fara badan sidaad sheegtayna halkan waa halkii Soomaaliland mar labaad ay dib uga soo noqotay xorriyaddeedii 1991 marka horta taariikh gaar ay ku astaysan tahay oo sumad gaar ay leedahay magaalada Burco marka laga hadlayo xorriyadda Soomaaliland dhinaca kalena waxa dadka shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba Burco iyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba maanta sanadkan waxa loo dabaaldegayaa si ka duwan maalmihii hore iyo taariikhii hore waxaana arinta aan filayaa in ay salka ku hayso iyadoo dadku ay arkayaan in qarannimadii Soomaaliland ay dunida maanta magac iyo martabad wanaagsan ay ka marayso oo dunidii waaweynadii nala shaqeynaysay hadda Ingiriis tahay hadda dalal kale tahayba iyo wadamada jaarka iyo Afrika cid waliba iyo Carab iyo Turkiya meel walba in adduunyadu maanta ay arkayso oo indhaha ku hayso Soomaaliland shacabkeedu waxay doonayaan dawladda Soomaaliland waxay muujisay in ay u taagan tahay ilaalinta qarannimada iyo sida ictiraaf uga midho dhalin lahayd markaad eegto sida dawladdu uga shaqeyso arrinta iyagoo ka jawaabaya shacabka reer Soomaaliland ayay ila tahay in maanta sida qiimaha loo weyneeyay 18 May dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waa arrin farxad ah waa arrin aan ugu mahadnaqayo uguna hambalyeeyo shacabka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda Soomaaliland imika waa dawladda doonaysa inay ictiraaf ka hesho caalamka maxay haysataa in la oran karnaa si ay maxay miiska soo dhigi kartaa oo ay ku qancin kartaa adduunka si ay ku heli lahayd oran lahayd maanta anigu waxaan ahay jamhuuriyad gaar ah dal baan ahay la aqoonsan karo maxay oran karnaa haysataa Soomaaliland su'aalaha iyo aad wanaagsan Soomaaliland arrimo fara badan bay haysaa oo ay mandaqada iyo dunida iyo gobolka ku soo kordhisay iyaduna isku kordhisay Soomaaliland waa dal u taagan horta marka hore nabadgelyo wadamada jaarkana u ballan qaadaysa inay san nabadgelyo iyo walaaltinimo kula noolaato Soomaaliland nabadgelyo iyadu ay ku kala badbaaday samaysay nidaam dawli oo hagaagsan bay samaysay oo lagaga dayan karo waxay samaysay dimuqraadiyad iyo kala dambeyn lagaga dayan karo waxay samaysay bisayl siyaasadeed oo xukunka lagu kala wareego xisbiyada badiya iyo xisbiyada laga badiyaaba ay si amni oo nabadgelyo kula wareegaan arrimahaas waa arrimo mandaqada iyo dunidaba faa'iido u leh oo Soomaaliland miiska ay ku hayso oo soo kordhinayso dhinaca kale Soomaaliland waxay leedahay khayraad fara badan oo dhulka gudihiisa dibaddiisa badda ku jira xoolaha beerale macaadin leh arrimo badan leh dad badan oo aqoon leh dhalinyaro leh waxaasoo dhan waa wax faa'iido u leh bulshada caalamka iyo wadamada jaarkaba dadka xoolaha leh faa'iido u leh dadka farsamada iyo aqoonta inagu dhaama faa'iido u leh iyo dadka gobolka ku nool intaba marka arrimo badan bay u taagan tahay waxay kaloo Soomaaliland u taagan tahay mabda'an loo yaqaan mabaadi'da loo yaqaan ay ka talinta ama waxa la yiraahdo self determination
principle in dadku ay aayahooda ka tashan karaan markay wax isku raacaan raalli ka wada yihiin ilaashanayaan nabad ku wada nool yihiin dunida iyo gobolkana ayna xasarad iyo nabadgelyo darro iyo xasiloon darro aanay ku hayn marka meel weyn oo qiimo leh kaga jirtaa Somaliland dunida haddii aynu u yar dhaqaaqno xagga siyaasadda dibadda iyo shirkii ugu dambeeyey London loo sameeyey Soomaalida Somaliland way diiday inay ka qayb qaadato go'aan bay ka qaadatay go'aankiina way fulisay bal waxaad nooga warantaa sababaha ra'iisiga ugu muhiimsanaa ay Somaliland ku diiday inay ka soo qayb gasho shirka shirkii London dhawaan dawladda Soomaaliya loogu qabtay sababihii aanu xukuumad ahaan aanu diidnay ka qaybgalkiisa horena waanu cadaynay waxaanu arkaynay shirkaasi inuu yahay shir gaar u ah dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda oo nabadgelyo loogu samaynayo oo nabadgelyada lagu taageerayo oo ciidankooda lagu taageerayo oo cadaalad loogu samaynayo oo maamul wanaag loogu samaynayo arrimahaasi waa arrimo u gaara dalka aan walaalahay jaarkanahay Soomaaliya waxaanu u rajaynaynaa inay ku guuleystaan iyaga iyo dunida kale caawinaysaaba inay ku guuleystaan hase yeeshee arrin qarannimada Somaliland iyo dawladnimadeeda runtii wax ka khuseeyeen maaha dunida kaleanu kala midnahay arrinta marka sababaha waanu u diidnay inaan uga qayb galno dhinaca kalena shir aanu martabadiisa iyo ka qaybgalkiisa ay ku dhexlumi karayso ku khaldamaysa karayso weeyeen madax banaanida Somaliland waa shir aan la mid ahayn shirkii kala hore 2012 aanu ka qayb galnay oo shir aanu simanahay annaga iyo dawladdii markaa jirtay ee Soomaaliya hadal ku lahayn isku siin loo qaabilay aanu kelmad wanaagsan ku lahayn isla markaana aanu ixtiraam iyo protocol iyo soo dhaweyn baanu ku lahayn kan uu ka duwanaa mid dawladda Soomaaliya u gaar ah marka sida awgeed uma arkay midna xuseeya hase yeeshee Soomaaliya waxaanu kula jiraa wadahadal kuna mu ahayn wadahadal ka dhacay shirka gudihiisa wadahadal socda oo bari dhaweydna dhaxmaray imakana aanu ballansanahay in mar kalena uu dhaxmaro marka ka diyaar baanu nahay inaan Soomaaliya iyo Somaliland sidii si nabadgelyo loogu kala guri lahaa si xiriir wanaagsan maray dhaxmari lahaa si iskaashi wada yeelan lahaayeen aan doonayn in lagu gaaro arrimahaasi diyaar baanu nahay inaan kala shaqeyno shacabka Somaliland gudaya dibadda in intee leeg bay shirka ay qaadaaday xukuumaddu in intee leeg bay taageersanayeen ama ka soo jeedeen meel kasta oo tagna waxaa muuqatay runtii in shacabku arrinta ay aad iyo aad u taageersiiyeen hase yeeshee annagu xukuumad ahaan go'aanka looma qaadan shacabka taageeradiisa iyo taageerad la'aantiisa waxaanu aaminsanahay oo naloo diray inaanu qarannimada ilaalino inaanu sharafta iyo dawladnimada Somaliland wakiilka ka nahay inaanu ilaalino marka waxa ay nolol muuqatay arrintaas inay madmadow u keeni karayso markay ugu yartahay marka waxaasoo dhan waa wax anaga nasaaray inaanu qiimayno inaanu dhan walba ka eegno inaanu dibadna go'aan ka qaadano anagoo ka duulayna mas'uuliyadda qaranka naga saaran Soomaaliya hadaynu soo noqono iyo go'aansitaanka Somaliland lafteeda aad ayuu ugu xiran yahay ayaynu u muuqataa inay Soomaaliya ugu xiran yahay maadaama aad ahaydeen hal dal aad ahaydeen wixii ka horeeyay 1999 marka tasawurkee wajigee ayaad doonaysaan inaad wixii mustaqbalka kula dhaqantaan Soomaaliya qaabkee baad doonaysaan waxaad ka doonaysaan in kala soo ceshataan iminka go'aansitaanka iyagu ugu horeeyaan waxa idin ictiraafa oo idin siiya xaqiini marka qaabkee wajigee baad isleediin bal ayaad iminka ugu qancin kartaa Soomaaliya ama ula dhaqmi kartaa warunta waanu jecelahay in Soomaaliya ay noqoto maadaama aanu nahay dad jaara oo walaal ah wax badanna dhex mari karaan in ay noqoto dalka ugu horeeya ee Somaliland ictiraafa waxaan rajaynayaa oo aaminsanahay arrintaasina waliba inay noo fududayn karto in dunida kalena ay si dhib yar leh xiriir wanaagsan iyo aqoonsiba noo fidiso marka taas waan rajaynaynaa waanu ka codsanay Soomaaliya dawladda Soomaaliya hase yeeshee dhinaca kale Soomaaliya waxaanu jecelahay inaanu xiriir fiican la yeelano haday noo qoonsatay hadii kaleba inaanu nabad wadaag la yeelano inaanu nabadda mandaqada iyo regionka aan wada ilaalino inaanu gacan ka siino wixii aanu gacan ka bixin karno inaanu iska kaashano arrimaha nabad khuseeya ee nabadgelyadu ka mid tahay ilaalinta deegaanka iyo isku socodka dadku ay ka mid yihiin ganacsigu ka mid yahay inaanu arrimahaas oo dhan ka wada shaqeynaa jecelahay jaar wanaag iyo daris wanaagna aanu kula dhaqanay hadaynu wasiir
حق دبدا أنه مر يرجع الله بالكسيدة قاب كيبلي دولة ومداماتين دولة ولي الاعتراف سنين آتيين إذا كنا نسافر رجشان ودولة بدن القرنطان وأمريكا تكتير ودإنجليز كتكتير ودول بدن وعرب بلاد يوروبا تكتان بل نجورهن درجين تلاقي قاب كالذين قابلوا قاب كاد مسي دولة هان بالذين قابلا سيدة بد ولا كان دولة هان نوع سكلا horta dee arrintaas waa arrin dee dadkuba wada arkayo oo dunidu arkayso inkastoo sidaan horeba u sheegay aqoonsigii siyaasiga ee buuxay ee ka mid noqoshada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo afrikan ururka midooda afrika iyo weli ay noo harsan tahay haddana sida dowladda somaliland dunidu markaanu la shiranayo markaanu la hadlayno iyo qaabka noloda dee waa qaab aan ka duwanayn qaabka duwalka caadiga ah meelaha qaar dalku maadaama la ictiraafsanayn way jiraan caqabado nuriyaalla oo aanu kaga bixi karna marka dalku uu helo aqoonsi buuxa hase yeeshee ma qawadsanin runtii waananu ku faraxsannahay sida dunidu hadday ingiriis tahay hadday maraykan tahay hadday carabta tahay sidaad sheegtay iyo turkiya iyo afrikada kale iyo etoobiya iyo waddamada kale oo dhanba sida naloo dhaqmo waa sida normalka ah ee caadiga dowladaha madaxa bannaan loola dhaqmo waana arrinna dhiirigelinaysa oo shacabka reer somaliland dhiirigelinaysa waa arrinta keentay in isu soo baxii maanta ka dhacay somaliland gudaheeda iyo dibaddiisa uu runtii u lixaad weynaa u qiimo badnaa loo nooleynayo waxa weeye iyadoo taasi noo muuqato maanta sida dunidu diyaarka ugu tahay marxabaystiinta iyo soo dhoweynta iyo ka garaabidda qadiyadda madax bannaanida ee jamhuuriyadda somaliland intaasaan jeclahay inaan ku waxaweye su-aashii ugu dambeysay adoo naga raaliya dadka shacabka somaliland mudaya dabadba waxay rajeynayaan ictiraaf maxaad oran lahayd bal rajada ictiraafka halkay marayso iminka shacabka reer somaliland marka laga yimaado hambalyada sanad guuradan 22aad xorriyaddii somaliland ka soo wareegtay markaan taa laga yimaado waxaan jeclahay inaan ugu bishaareeyo in qarannimada iyo dowladnimada somaliland maanta ay taageero buuxda iyo soo dhoweyn iyo ixtiraamba ay dunida ku leedahay caddayn kale uma baahno caddaynta ugu weyn ee muuqata waxa weeye golayaasha adduunka iyo waddamada aanu saaxiibka nahay sida ay dowladda somaliland ula dhaqmayaan hadday soo dhoweyn tahay hadday wadaxaajood tahay hadday ixtiraam dowladeed tahay hadday brotocool tahay hadday tahay kelmad wanaagsan oo ay somaliland qarannimadeeda ku beegan oo ay ka yidhaahdaan intuba waxay tilmaan cad u tahay iyo markhaati in xorriyadda iyo qarannimada somaliland ay tahay mid aan la dafiri karin inay tahay mid dunida u muuqata inay tahay mid aan la qari karin iyo inay tahay mid maanta dadkii caalamka ku noolaa ay markhaati ka yihiin inay taabaqaaday waxa kaliya hore waxa weeye go'aamadii asaasiga ahaa ee siyaasiga ahaa ee aan uga baahnayn duwalka adduunku inay ictiraafka somaliland ka qaataan taana waxaan rajaynayaa in waqti aan fogeyn ummadda reer somaliland ay ku guulaysan doonaan haddii alla idmo aad baad mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa dr maxamed cabdilaahi cumar wasiirka arrimaha dibadda somaliland waanu kulan gaara kula yeelanay magaalada burco mar uu ka soo qayb galay munaasabadda xuska 18 May maalinta gooni sutaaga somaliland doctor aad baad mahadsantahay